magacaygu waa Badri Yuusuf Omos waxaan ahay xildhibaan ka soo baxay maamulka magaalada Qabri Dahar waxaan rabaa inaan si dhab ah u cadeeyo ninka la dhaho Cali Shucaac inuu ku sifoobay awal uu ahaa nin nabadid horay uga soo shaqeeyay oo ururo nabadid horay uga soo shaqeeyay haddana rabo inuu u galo inuu abuuro nidaam nabadidnimo ah oo cusub oo salka ku haysta al-shabaab ruuxa shaqada uu yaqaano buu ku weynaada ku gabooba ku dhinta shaqada uu yaqaano Cali Shucaac waa nabadidnimo awal nabadid buu ahaa haddana waa nabadid awal nabadid wuxuu ahaa la yaqaanay oo Soomaaliya oo dhan ay wada taqaanay haddana nabadid al-shabaab weeyaan oo uu ka dhaxlay walaalkii oo Xasan Turki ah uu ka dhaxlay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay soo martay xilliyo fara badan oo dabeecado kala gedisan leh tusaale ahaan xilligii leegada oo kale oo ahaa xilli qabiil iyo nidaam aada u foolxun ku sifoobay xilli dadku ay isu haysteen qabiil ay isu haysteen oo aan shacab loo adeegi jirin kabacdi waxaa dhashay xisbi uu sal u yahay shacabku oo shacabku uu soo doortay xisbigaasi wuxuu sal u noqday inuu dhaliyo xisbigu horumar ballaadhan oo dhammaan deegaanka ka hirgala xisbigu wuxuu horseeday iyo xukuumaddu waxay horseedeen in nabadgelyada laga howlgalo in laga howlgalo isku xirka shacabka iyo xukuumadda iyaga oo xukuumadda iyo shacabku ay iskaashanahayaan yaa dhammaan xubnihii nabadiidka ahaa lagu guuleystay in la tirtiro kabacdi xukuumadda iyo shacabku iyagoo gacmaha is haysta waxay u jeedsadeen horumar sidii loo gaari lahaa waxaan wada ogsoonahay horumarka hadda ka hirgalay xukuumaddeena iyo deegaankeena ka hirgalay mid sacaba lagu qarin karo inuusan ahayn ciddii garaad leh ama maskax leh ama caqligeedu uu saafi yahayna ayna inkari karin hadduu mucaarid yahay iyo hadduu muxaafid yahay waxaan ogsoonahay nabadiidkii markii aan dhammaynay in ay jiraan wadamo inagu hareereysan oo nabadiid uu ka jiro tusaale ahaan sida Soomaaliya oo kale waxaa ka jira al-shabaab baa ka jira al-shabaab wuxuu Soomaaliya ka sameeyay waa la ogyahay qaraxa uu ka sameeyay waa la ogyahay wuxuu horey uga soo sameeyay waa la ogyahay hadda wuxuu rabo inuu sameeyana waa la ogyahay olole wuxuu al-shabaab ugu jiraa siduu dadkeena uu u kicin lahaa haddii aan taa aan kasii tallaabo al-shabaab waxaa madax u ahaa Xasan Turki baa madax u ahaa Xasan Turki waa Cali Shucaac walaalkii weeye Xasan Turki markuu dhintay Cali Shucaac waxaa la siiyey magti Xasan Turki baa la siiyey muddo dhowr bilood dabadeed aan mushahaar bay u qoreen al-shabaab baa u qortay 3 bilood markuu joogana al-shabaab buu la kulmaa oo la shiraa Cali Shucaac isaga iyo wiilkiisu had iyo hameen waxay ugu hawlan yihiin oo u soo jeedaan al-shabaab siday ciidan ugu sameyn lahaayeen deegaankeena taa horta Soomaali inay ogaato yaa laga maarmaan ah waxa ay ku hadlayaan waxa sal u ah al-shabaab inay al-shabaab dad u abuuraan inay al-shabaab meel walba ka howlgeliyaan inay al-shabaab ay u noqdaan maxaan ku dhahdaay hogaamiyaal ay u noqdaan wayna u yihiin haddaba ciddii moodeysa Cali Shucaac iyo wiilkiisu inay ka hadlayaan arrimo kale waxaan ogeysiinayaa oo u sheegayaa dantooda iyo hadafkoodu waa al-shabaab wey haddaad ku taageeri iyo haddaad ku taageerin aday ku taala annagu waxaanu haysanaa shacab iyo xukuumad isku dhafan
oo gacmaha haysta oo aan la dhex geli karin oo aan hadal iyo BBC laga hadlo iyo Facebook laga hadlo aan dadkooda lagu kicin karin yaanu haysanaa dadkanaga waxaanu gashanay ee wax tarka ah yaa muuqda taageeradooda muuqda oo shalay ahayd oo shalay ay ku muujinayeen xukuumadda iyo madaxweynahooda iyo dawladooda ay ku taageerayaan oo tuulo walba iyo qabalo walba ka hirgalay oo aan la qarin karin oo marxaad ka ahaydeen arintii ka dhacday qabridaha ka dhacday ee geerida ahayd gabadhii Allah naxariisto gabadh yar oo dawladeedii iyo deegaankeedii la joogtay bay ahayd waxa weeyaan anaga u tacsiyeynayna Allah naxariisto yaan leenahay gabadhaas dadkeedii iyo deegaankeedii bay ka dhimatay taxsina anaga siinayna taa inaad ogaataan waa laga marmaan waxa kale oo laga marmaan inaad ogaataan qolyaha dibadda ku sharaxaya ee qoyska loogu soo gabanhayo waa la idin kasbanaya inaad dib uga istaagtaan baa laga marmaan Ali Shucaac iyo wiilkiisa yaa fiilay in ku xiriirsanay haddaad garanaysaan iyo haddaydna garanayninba dadkuna hadda ka hor waxay ahaan jireen shacab xukuumadda taageera oo horumarka iyo nabadgelyada ka shaqeeya iyo shacab horumarka iyo nabadgelyada ka soo horjeeda labadaas u qaybsanaan jireen labada un baynu qaybsanaanaynaa haddaad xukuumaddiinni iyo dawladdiinni aad taageeri weydaan oo taageeradiinni aad dib aad uga istaagtaan daqiiqad haddaad dib uga istaagtaan saynu kala ahaan jireen baynu ahaanaynaa laydinma cid la baryana ma ay jirto cid la baryana ma jirto waa la kala badini waxaa xusid mudan oo la rabaa in aad macnaheedu loo xusuusnaado xasan turki wuxuu ka sameeyay Soomaaliya xasan turki ninkii rogay buu ahaa Soomaaliya ninkii meel walba qarax ka sameynayay buu ahaa ninkii meel walba ajnabi keenayay buu ahaa ninkii noocaas ahaa ninkii bedelay ee la ogyahay inuu bedelay ee la ogyahay inuu mushaharkiisa qaato ee la ogyahay inuu waqtigiisa uu qaato ee la ogyahay inuu fikirkiisa meel walba uu ka faafinayo tabliiq buu ku soo gabadaa xilliyada qaarkood uu dhaha tabliiq waan u baxaya iyagii muna la soo kulmaa tabliiqna ma aha isagu oo kama tirsana tabliiq waxaa la rabaa marka kii ku geliyow iyo ka aan ku gelininow inaad ogaato yaa laga marmaan dadka xukuumadda iyo xisbiga jecel gabadha arinteedu waa baroorta orgiga ka weyn weeyaan gabadh shalay dhimatay oo deegaankeedii ku dhimatay oo maxaan ku idhaahday dadkeedii iyo ehliyadeedii iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo dawladeedii dhex joogta in shirar laga qabto oo maxaan ku idhaahday bayaana laga soo saaro dee dawladeedii iyo dadkeedii bay dhex joogtaa oo shirar ka qabani oo bayaana ka soo saari dawladeeda tacsi u diri dawladeeda dadkeeda sawirsiini dawladii shacabkii baa gacanta isku haya shalay maxaad oga hadli weydeen Ali Shucaac shalay maxaad oga hadli weydeen labadii reer dalal ee gudunta isku dilaysay maxaad oga hadli weydeen haddana nin raga tahay maxaad taa oga hadli weydeen qabiilku marka xumaatada uu shaqeeyay marka wanaagga muxuu u shaqeyn laayay saddex iyo laba markii la isugu aarahayay reer dalalka gudahooda maxaad oga hadli weydeen maxaad wax ugu soo ururin weydeen maxaad magta oo la bixin weydeen nin raga hadda tahay reer cali dalal magta la bixis kuwa dibadda jooga taamaad ka hadashaan shalay marka qabiilka reer dalal uu isku jabahayay qoryaha la isku guranahayay ee la qabanahayay ee la kala waaminayay xukuumaddu iyo ciidanku ay ku kala dhex jireen maxaad uga hadli weydeen haddii ayna ahayn baroorta orgiga ka weyn haddayna ahayn taasaa loo baahan yahay inuu maskaxdiinu inay shaqaysaa loo baahan yahay iyo garaadkiinu inuu shaqeeyo caqligu inuu shaqeeyaa loo baahan yahay shalay shir maad qabateen labadii wiil isku dhimatay aad ugu baroor deeqaysaan oo tacsi ugu diraysaan oo bayaan aad kaga soo saaraysaan oo mag ugu ururinaysaan shalay maad qabateen waa maya ninkii riyaal la weydiiyo $100 la weydiiyo dib uu u guranayay annaga u tacsiyeynayna annagayna dhex joogtay annagayna taageeraysay dawladeedii ku dhex jirtay annagay naga dhimatay hawl idin taala ma aha nin diaspora oo dibad jooga oo waddan kale laaji ku ah inuu annaga nagu qeylqeylay ma aha kamana qaadanayno kamana yeelayno
haddaad macnihii aad dib aad u istaagi weydaanna dee ajnabi baa tihiinba waddan kalaad haystaan dhalashadiisa haddaad isgaran weydaan weeyaan haddaad isgarataanna dee sax welcome ajnabi baa tihiin laaji baa tihiin waxbayna haysanin Soomaali Maxamed waxaan dib aan ugu tilmaamahayaa xasan turki dhibaatadii uu u geystay Soomaaliya inuu cali shooca u halgamayo inuu deegaankan u geysto Soomaalida Itoobiya taa ina dib aad uga istaagtaan oo aydan garab istaagin fikirkiisa xun ilaa iyo Soomaaliya waa la yaqaan dadku horay u laayay baa magtooda loo haystaa awal waa la yaqaan haddana waa la yaqaan jigjigana waa lagu yaqaan adsawana waa lagu yaqaan meel kastoo tagana waa lagu yaqaan waa af minshaar laba carab leh wiilkiisana waxa weeye isagu u yahay jeeb isaga waxa ururinayo weeyaan waxa yimid ninka Jamaal la dhaho Jamaal muddo dheer buu deegaanka dhex joogay maamulka iyo deegaankana muuse dhex gelin kamana uu dhex muuqan sababta uga dhex muuqan waayo maxay ahayd de xaq jir buu ahaa fikirkiisu ma cadeyn waxa aaminsan yahay ma cadeyn inuu xaq jir yahay cad oo muuqata taasuna ku sifoobay taasuna ku waayay xilal badan iyo maxaan ku raahdaa inuu dawladda u dhex galo muwaaqirka dawladda inuu dhex galo waxaan leenahay in cali shooca lugtala mooyo booli iyo wax kaga dhacay Fred xabadeed iyo baasuuki mooyo wax kaga dhacay in cali shooca lugtala iyo Jamaalka lugtala reedal ma matalaan annaga matala reedal annaga xildhibaanna waa annaga maamulka ugu jira annaga deegaanka joogna annaga aaminsan deegaanka on meel ooga bixin oogana baxayn duruuf kasta oo ay ku nool yihiin kula nool shacabkoodana garab taagan heel iyo hoona la garab taagan mii yaqaanaan shalay waxaanu ka nimid marsi baanu ka nimid waxaanu ka nimid labi hawlaan ka nimid waxaanu ka nimid madax maroodi baan ka nimid waxaanu ka nimid toon celi baanu ka nimid isku dhownley baanu ka nimid waxaanu ka nimid maxaan ku dhahdaay baraaj salaam ka nimid kudumbuur baan ka nimid ceel xarab baan ka nimid xaggee jireen shalay markaanu shacabka la kulmaynay taageeradooda nagu muujinahayeen heel iyo hoob aan la garab taagnay duruuftay ku noolaayeen aan la ogeyn ruux hunguri uu qaadqaadahayo hungurigiisa uu shanqarahayo dee shacabku inuu dhegeysta maaha dee reedal inay dhegeystaana maaha hunguri baa qaadqaadahaya shanqad baa u baxday meel ay shanqari ka jirtana ma garanhayaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayaa dadka ku nool qurbaha in ay dib uga istaagaan nimanka fikirkooda iyo maxaan ku dhahdaa aragtidooda khaldan ay dib uga istaagaan haddii kuwa shirarkooda aad sii wadaan oo aad garab istaagtaanna al-shabaab baad garab istaagteen oo aan gabasho lahayn oo inaan qarsanin oo aynu isku waayanaa annaguna waxaan u diyaar garoobaynaa saanu idin la dagaalami lahayno taa inaad diyaar u noqotaan weeyaan cali shooca Soomaaliya markuu joogay waa la yaqaanay dhunuqaatu ahaa 77kii waa la yaqaanay dhunuqaatu ahaa kolba meel buu naag ku guursan jiray kolba meel buu istaagi jiray al-shabaab iyo ciddii taageerta iyo ciddii ahayd iyo ciddii mas-uulka ka ahayd iyo xasan turkiba godka Allah ku cadaabo cali shoocana godka Allah ku cadaabo wiilkiisana godka Allah ku cadaabo ma doonayno qarmuunkoodana ma doonayno Soomaaliyana way soo daaliyeen Soomaaliya soo rogay cali shooca xasan turkina Soomaaliya soo rogay deegaanka laakiin ma rogayo annaga u joogno xukuumad iyo madaxweyne iyo maamul suuban baa ka jira deegaanka oo had iyo habeenba u soo jeeda had iyo habeenna u halgamaya horumarkooda iyo nabadgelyadooda reer Cabdilla Fiixiye ay ka hadlayaan reer Cabdilla Fiixiye dhibaatada ay geysan ma ka hadlaan reer Cabdilla Fiixiye la soo daayo reer Cabdilla Fiixiye iyagu dhibaatada ay geysanayaan maal qiimeeyo horta dhibka iyagu ummadda ku hayaan miisaanka ma la saaro miisaanka marka la saaro aynu qorqortanade midinka dhibaato badan ma anaga dhibaato badan
dhibka aad ummadda ku haysaan ma eegeysaan miya war damiirkiinu ha idin hago kuwa maraykanka lagu kasbanhayo ee beenta loo sheegayo ee la kicinayo qabiilka lagu kicinayo qabiil yaan laydinku kicinin shalayba qabiil laydinkuma kicinaynin shalay cali shucaac muu ka hadlo BBC muu ka hadlo labada wiil isku dishay baashi ee reer dalal muu ka hadlo oo magtooda muu ururiyo oo muu oday u noqdo oo maslaxa muu ka shaqeeyo been hadduusan ka shaqeynayn iyo munaafiqnimo hadduusan ka shaqeynayn iyo nabadiid iyo onog iyo jawhar iyo hadduusan la safnayn iyo inacab jar nabadiid oo dhan bay urursadeen nabadiid oo dhan si uu idil yahay reer cali shucaac buu ku hareeraysan yahay cali shucaac marka cali shucaac dembiile ah oo waddanka dembi ka galay oo dembigiisa lagu raadhayo weeyaan horta cali shucaac haddaad garanaysaan hadda ka horna indhaha aan iska qabanayno laakiin hadda indhaha anagu iska qaban mahayaan indhaha anagu toosh baan yaan ku daba ifinaynaa meeshu maraba jawhar cidday u yeedhinayso dee ha u yeedhisa dee annaga noo yeedhin mayso jawhar ciddii u yeedhinayo ha u yeedhiya dee annaga noo yeedhin maayo ina cali shucaacna jawhar buu jeebka ugu jiraa cali shucaacna al-shabaab buu jeebka ugu jiraa hadalka murtidiisa waa intaa weeyaan reer dalalka dunida dacaladeeda kala jooga arrinta gabadha yaan si dadban la idinku adeegsanin yaan fikir al-shabaab iyo fikir nabadiid iyo fikir onag yaan la idin soo dhexgelin gabadh deegaankeedii iyo dalkeedii dhex joogta bay ahayd dadkeediina ka dhimatay dalkeediina ku dhimatay annagana naga dhimatay bay ahayd bas intaasay macnihi ku eedashahay gabadha xaaladeeda kharash ay cali shucaac iyo salxaan iyo ay ururinahayaan waxba gabadha u tari mahayo taa inaad ogaataan baa muhiima oo dowladdeedaa siin dowladdeedii baa garab taagan annagaa siinayna anugu aan kow ka ah $1,000 baan bixinayaa anigu keligey dowladduna saasay wada bixinaysaa taa inaad ogaataan baa muhiim yaan laydinku sirin yaan laydinka ururinin al-shabaab bay lacagtaasi u tegaysaa ciddii laga ururiyo saa inaad ogaataan baa muhiim